salaamullaahi calaykum daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii aan ku qaadaa dhigi jiray dagaalada ka socda dowladda Itoobiya iyo weliba geeska Afrika. barnaamijkan waa barnaamij aad u xiiso badan. qodobada aan ku hayna waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya ayaa ciidamo culus u soo jeedisay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna wacad ku martay inay dhulka la simi doonto haddii uusan Addis Ababa xiriirkeeda wanaajinin. TPLF ayaa sheegtay in weerarada cirka iyo dhulka ay ku hayaan ciidanka Eritrea. afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaana sheegay in duqeymihii Adigrat ay kumanaan shacaba iyo ciidankooda ay ku basbeeleen. qowmiyadda Amxaarada ayaa ammaan kala duldhacday madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. deegaanka Soomaalida xogaha aan ka helayna ayaa tibaaxaya in la ugaarsan doono madaxda xubnaha iyo kaadirka ururka ONLF xilli dowladda dhexe ee Itoobiya shalay ay ku dhawaaqday in ururkaasi uu xiriir toos la leeyahay ururada Al-Shabaab, Onag Shayna iyo kooxda haatan dagaalka culus lagula jira ee TPLF. qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal ku daawan doontaan. barnaamijka waxaa dhankayga midig fadhiya oo ila qaadaa dhigi doona saaxiibkay Faahiye. bal waxaad noogu horreysiisaa dagaaladii ugu dambeeyey meesha la kala marahayo Itoobiya iyo TPLF. bal ku soo dhowow. aad baad u mahadsan tahay Axmedow. xaaladda dalka Itoobiya dagaaladu waxay galeen isbuucii labaad iyo maalmo dheeri ah. labada dhinac ee TPLF iyo sidoo kale dowladda federaalka Itoobiyana mid walba eedeymo culus ayaa dhinacooda ka soo baxayo. afhayeenka TPLF Getachew Reda oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in duqeymihii abid ugu xooganaa ay ciidamada Eritrea oo garabsanaya kuwa militariga Itoobiya ay ka geysteen deegaanada ku hareeraysan ee deegaanka Adigrat. waxa uu sheegay deegaanada sida gaarka ah loo duqeeyey ama dhibaatada ugu xoogan ay ka geysteen ciidamada TPLF in halkaasi ay ku gumaadeen shacab iyo ciidan wada jira. waxa uu intaasi ku daray in dadkan la xasuuqay ama la dhibaateeyey ay geysanayaan ciidamada militariga dalka Itoobiya kuwa Eritrea. Getachew Reda deegaanada sida gaarka uu u magacaabay waxaa ka mid ah deegaanka Rama, Tesserona, Salambasa, Dolalo Front sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sheegay in dagaalkan oo qaatay isbuucii labaad in ay ciidamada TPLF guul weyn ka gaadheen, balse Abiy Ahmed oo dagaalka ku fashilmay dhinaca kalena ciidamadiisu ay hoobin waayeen xabadda ay u istaagi waayeen in ay duqeymo hadda ka geysanayaan. dhinaca kale Abraham Tasfaye oo ahaa Major General ka tirsan ciidamada militariga Itoobiya sanadihii u dambeeyayna dowladda federaalka Itoobiya jaan iyo cirib meel u dhigay ay dhinaca kalena ay ku shabadaynaysay inuu ka tirsan yahay waxa ay ku sheegtay argagixisada TPLF oo doonaysa dalka Itoobiya ayaa maanta ka soo muuqday furimaha hore ee dagaalka lagula jiro dowladda dhexe federaalka Itoobiya ee TPLF ay ku soo qaaday. dhinaca deegaanka Birhale ciidamadii ka soo galay ee Eritreanka maanta waxaa la sheegay in buraha Zobil ay galeen iyagoo xidhan militariga direyska militariga Itoobiya. dhinaca kalena aagaasi ay ka bilaabeen dagaalo xoogan oo ay ku beegsanayaan falagada TPLF ee aagaasi ku sugan. deegaanada Humera dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in TPLF in ka badan 20 qof ay ku dhibaataysay oo ay ku laysay. dhinaca kalena gumaad shacab iyo sidoo kale xasuuqyo ay ka geystay aagaasi. dhinaca kale dowladda federaalka Itoobiya waxay ku eedeysay TPLF in xawayaanka ay ka mid yihiin maroodiga iyo sidoo kale digaagtoo kale in ay TPLF dhulkaasi aad uga xaalufisay oo ka aruursatay. telefishinka Itoobiya ayaana barnaamijkaas soo dhigay. dowladda Itoobiya dhinaca kale waxay sheegtay in TPLF hadda ay tahay mid gabaabsi si ah, dhinaca kalena ay doonayso in xaaladda Itoobiya ay ka dhigto mid burbursan. colaadda dalka Itoobiya xilligan waxaa ku soo biirtay dowladda Suudaan oo kumanaan ka tirsan militarigeeda maanta soo dhoobtay xuduudda ay leeyihiin Itoobiya iyo sidoo kale Suudaan taangiyada ugu fara badnaa ayayna aagaasi keentay. Axmedow dhinaca kale Suudaan xalay war ka soo baxay waxay sheegtay in ciidamada Itoobiya ee ku soo qulqulahayo dhulkeeda dhinaca kalena deegaanka qaxootiga ee Xamayta in qaxootiga iyo hay'adaha samafalka aagaasi ku sugan iskaga guuraan maadaama xaaladda amniga halkaasi dowladda Suudaan aysan xaqiijin karin. Axmedow dowladda militariga Suudaan oo maanta iyaga laftooda dhinacooda war-saxaafadeed soo saaray waxa ay sheegeen in ciidamada Itoobiya markii ay ku guuldareysteen la dagaalanka ay kula jiraan dhinaca kalena kumanaan ka mid ah maalin kasta la qabanaya qaybana iyaga isu soo dhiibeen inay eedo kala duldhacayaan dowladda Suudaan. dhinaca kalena ay doonayaan in dagaalka lagula jiro falagada TPLF iyo dowladda Itoobiya u dhaxay inay caalamiyeeyaan oo ay doonayaan in dagaalkii markay ku guuldareysteen gudaheeda
in ay doonayso in xagga Suudaan ay u soo rarto colaadda dalka Itoobiya ka howlaaqayso arrintaasi dowladda Itoobiya ilaa iyo hadda wax wara kama aysan soo saarin kamana aysan hadlin dhinaca TPLF na arrintaasi way ka gaabsatay xaggan deegaanka Wallo iyo sidoo kale Waqoomeera Sokota Gashane iyo deegaanadii kale dagaaladu ka socdeenna wali furimahaasi dagaal ayaa ka socdo inkastoo ciidamada Itoobiya sidii ay u qabsadeen deegaanka Sokota aysan wali ka bixin laakiin TPLF Gashane marna way qabsanaysaa marna waa laga qabsanayaa deegaanka Waqoomeerna dagaalka ugu cuslaa ayaa maalmahan ka taagan wali laguma kala bixin eedaymaha TPLF iyo dowladda ay soo jeedinayaanna kuwa joogsi lama ah dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka iyo xogayaha arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Mareykanka ayay soo dirtay oo ka soo degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya habeenkii xalay ahaa isagoo kulamo la qaatay dowladda federaalka Itoobiya dhinaca kalena la filayo inuu tago magaalada Maqale caasimadda gobolkaasi si xaaladda si xumaanaysa gobolka Tigreega wax looga qabto sidoo kale dowladaha midowga Yurub ayaa eedaymo culus u soo jeediyay labada dhinac ee ku dagaalamayo dalka Itoobiya waxayna sheegeen in xaaladda sidan laga bedelo dhinaca kale labada dhinac ay ku soo dhawaadaan miiska wada hadalka xuduudda dalka Eritrea iyo gobolka Tigray waxa la sheegayaa dagaal goos-goos u dhaxeeya ciidamada huwanta ee militariga Itoobiya kuwa Eritrea isgarabsanayo inay maalinba maalin ka dambaysa sii xoogeysanayaan dhinaca kalena labadaas dhinac ay kala furanayaan Mariya Dhiigle iyadoo TPLF dhulkaas ay ka sheegatay guulo waaweyn habeenkii xalay ahaa TPLF waxay shaacisay in deegaanka Shareer ay ku soo bandhigi doonto kumanaan ka tirsan ciidanka militariga Itoobiya oo ay ku qabteen dagaaladii kala dambeeyay maalmihii u dambeeyay ka dhacayay gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigreega waxay TPLF intaas ku dartay in ciidamadan ay ka mid yihiin 4 generaal oo caan ka ah dalka Eritrea laakiin dowladda Eritrea dhinaceedu wax wara kama aysan soo saari lahayn hadana kama hadlin Axmedow waxa intaas dheer in dowladda Itoobiya hadda ay ku jirto abaabulkii ugu dambeeyay dhinaca kalena deegaanada ay ku amartay in ay ciidamo keenaan dhaqaale ay bixiyaan sidoo kalena shirar degdeg la sameeyo si falaagada TPLF looga badbaadiyo wax la sheegay inay ku soo duushay qaranka Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaan kugu darayaa in maanta uu tagay furimaha hore ee dagaalka isagoo kula kulmay kumanaan ka tirsan ciidanka militariga Itoobiya wuxuuna ku labisnaa dharka direyska ee militariga Itoobiya waxaana sheegay in maalmo kooban uu ku soo afjari doono falaagada TPLF dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya xalay waxay sheegtay in diyaarado waday shixnado militari ay soo galeen gudaha dalka Itoobiya dhinaca kale ay ka degeen deegaanka Tigreega iyadoo arrintaasi ay ku macnaysay in Tigreega loo geeyo hub casri ah oo ay kala soo hortagi doonaan dowladda federaalka Itoobiya mayna sheegin war rasmi oo arrintaasi ku aadan dowladda Itoobiya ma shaacin dhinaca dowladda Eritrea wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan magaalada Asmara ee caasimadda dalkaasi inay ka degeen diyaarado ka soo duulay dalka ee sheegeen Iran kuwaasoo waday diyaaradaha loo yaqaan droniska iyo sidoo kale hub kale oo dowladda federaalka Itoobiya ay ka soo gaday dalka Iran walina warkaasi waxbaraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinta Tigreega iyo warbaahinta kale caalamiga ayaa aad u falanqeynhayo laakiin ilaa ay hadda ma jirto wax war arrintaas ku saabsan oo ka soo baxay inahaas ayaa ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka Itoobiya iyo dagaalada u dhaxeeya falaagada TPLF oo dhinaca dowladda federaalka Itoobiya iyo dalka Eritrea Axmedow marka laga yimaado dagaaladii ugu dambeeyay ee ka holcahayay labadii asbuuc ee ugu dambeeyayba deegaanka Tigreega gaar ahaan galbeedka gobolkaasi Tigray marka laga yimaado qowmiyadda Amxaaradu waxa ay eedeyn kala dul dhacday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waliba dowladda laftigeedu waxa ay ka hadashay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay dhaheen waa in xiriir wanaagsan si degdeg ah ama sida ugu dhaqsaha badan waa in uu Addis Ababa la sameeyo hadii kale wax isbedel ayaa dhici doona arrintaas bal ka waran aad baad u mahadsan tahay Axmedow ma aha qowmiyadda Amxaarada waxa eedaha u soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee waa dowladda federaalka Itoobiya sidaad og tahay dowladda federaalka Itoobiya marka laga yimaado qowmiyadda Amxaaradu maalmihii uu dagaalka bilowday waxay ku eedeynaysay in madaxweyne Xasan Sheekh uu xiriir la leeyahay dowladda Masar iyo sidoo kale urur caalami ah una doonayo burburinta kala dhantaalida iyo sidoo kale faragelinta qaranimada iyo jiritaanka dalka Itoobiya waxay sheegeen in Masar kumanaan ciidan ah ay keensan doonto xuduudda Itoobiya ay la wadaagto deegaanka Soomaalida waxa kale oo ay sheegayeen in al-shabaabtii soo weerartay dowladda deegaanka Soomaalida ay dowladda Soomaaliya dabada ka soo riixaysay dhinaca kale Axmedow sadad og tahay saraakiisha ugu sarreysa ciidanka militariga Itoobiya waxay ka degeen magaalooyinka Hargeysa beledweyne Garowe iyo sidoo kale magaalada Baydhabo iyadoo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen looga yeeray magaalada Jigjiga iyo sidoo kale magaalada gudaha caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida lana sheegay in Itoobiya ay doonayso inay kula dagaalanto dowladda federaalka Soomaaliya arrintaas marka laga yimaado habeenkii xalay ahaa telefishinka qaranka Itoobiya
waxa uu baahiyey muuqaal 12 daqiiqo socon hayay kaasoo anigu aan inta badan dhageystay waxay ka soo sheekeeyeen dalka Soomaaliya markuu xorriyadda qaatay sanadii 1960 dhinaca kale waxay ka soo sheekeeyeen Soomaaliya inay xagga dimuqraadiyadda ahayd the Switzerland of Africa ku magacaabeen ammaan bay halkaas kala dhaceen laakiin waxay dhaheen xorriyaddaasi ma aysan yani maysan si istaagino waatay burburtay madaxweynihii Soomaaliya hore Maxamed ninka la dhihi jiray Siyaad Barre ayay kala dul dhaceen eedaymo aad u xoogan oo ay kamid ahaayeen inuu Ethiopia soo weeraray weerarkii Ethiopia uu soo weerarayna ayadoo daba socoto in uu taliskiisa ku burburay waxyaalaha ay soo qaateen waxa kamid ah Ethiopia barakaysan markuu weerar ku soo qaaday inuu burburay waxa faafinaya warkaasi waa telefishinka qaranka dawladda Ethiopia waxay kaloo sheegeen waxay aad u amaaneen oo sidoo kale waxa weeye aad u soo dhaweeyeen in xiriirkii madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha ra'iisul Ethiopia Abiy Ahmed uu ahaa 5 sano la soo dhaafay mid aad u wanaagsan dhinaca kalena Ethiopia uu meel badan ka garab istaagay intaas telefishinka Ethiopia wuxuu ku daray in Xasan Sheekh imaanshihiisi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo magaalada Muqdisho tagay uu soo dhaweeyay dhambaal hambalyaana uu geeyay dhinaca kalena uu madax salax u soo sameeyay laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku eedeeyeen in arrimahaasi oo dhan uu ka tilaabsaday dhinaca kalena uu istaagay ama isu qaawiyay sidii uu u burburin lahaa dawladda federaalka Ethiopia dhinaca kalena uu qayb uga noqon lahaa kala dhantaalida dalkaasi iyo burburinta qarannimadiisa iyo jiritaankiisa inta waxay ku dareen Axmedow in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gudaha dalka Soomaaliya ku abaabulahayo ururo ka halis badan dhinaca kalena khatar gelin karo geeska Afrika markay warka intaasi soo wadeen gabadha warka tabinaysay waxay tiri inta marka laga soo tagay tiri madaxweynaha Soomaaliya arinta iga yaabisay ahayd arinta ujeedada laga haaway madaxweynaha Soomaaliya ay tiri Xasan Sheekh Maxamuud haddii uusan magaalada Addis Ababa imaanin xidhiidhna uusan la samaynin dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ku dhici doona ay tiri dhul gariir siyaasadeed yaani waxay tiri waxa ku dhici doono earthquake luqadda isticmaashaas earthquake waa dhul gariir marka waxa ku dhici doona ay tiri dhul gariir siyaasadeed dhinaca kale waxay sheegtay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu aad isku taxalluujinayo xiriirka dhexmari kara dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya looga garab istaagi lahaa la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale Soomaaliya sidii cagaheeda ugu istaagi lahayd arrimahaasi markaan wax ka weydiinay dad arrimaha siyaasadda u dhundaleelo dhinaca kalena xiriirka dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia aad macquul u ah oo ay ka mid yihiin shakhsiyaad bulshada Soomaalida sumcad iyo magac ku dhaxleh waxay noo sheegeen in arrintan ay ka kacday heshiiskii madaxweynaha Soomaaliya uu la galay dawladda Kenya ee salka ku hayay furitaanka qaadka Kenya taasoo lagu sheegay in Ethiopia uu ka soo gaaray dhaawac aad u weyn dhinaca kale arrintan waxaa lagu sheegay inay daba socoto booqashadii madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira kaasoo heshiis uu kula galay dawladda Masar iyo madaxweyne Fattah Sisi xilli Ethiopia iyo Masar ay isku hayaan biyaha webiga Nile waxa kale oo loo xaqiijiyay in arrintan ay daba socoto kadib markii dawladda federaalka Ethiopia horay uga cudur daaratay in madaxweyne Xasan Sheekh uu tagay magaalada Addis Ababa in asaga dhinaciisana 3 jeer oo Ethiopia ay u soo dirtay invitation dhinaca kalena ay ku casuuntay magaalada Addis Ababa in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gacan sayday dhinaca kalena uu iska diiday in uu tago magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia arrintaas oo lagu macneeyay in ay tahay in dawladda Ethiopia ay u aragto in Xasan Sheekh Maxamuud uu aanteeniin ka gaabsaday intaas wixii ka dambeeyay dawladda Ethiopia waxay bilowday in ay faragelin siyaasadeed ku bilowdo gudaha dalka Soomaaliya oo maantadan aan kula hadlayo u dambeysay xiriyaha militariga Puntland waxa lagu arkay saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Ethiopia taas oo fajac iyo la yaab ku noqotay bulshada Soomaaliyeed iyo sida militariga Ethiopia uu gudaha Soomaaliya faragelin ugu hayo iyadoo ognahay in dalkaasi gudihiisa uu gubanhayo dhinaca kalena ay ka socdaan colaadaha halakeeyay waxa weeye gobolada Tigreega Amxaarada iyo sidoo kale Anfarta isku soo duuduba warkan hadda ka soo baxay dawladda federaalka Ethiopia ayaa u muuqda mid wataac iyo calaacal salka ku hayo dhinaca kalena ay doonayso in ay ku dhexgalgalato siyaasadda dalka Soomaaliya laakiin lama garan karo waxa ay ka faa'iideysay xilligan in Soomaaliya ay hanjabaad inta leeg u soo jeedisay dawladda federaalka Soomaaliya Axmedow fahayow su'aasha aan rabayna ku weydiiyo waxa weeye qowmiyadda Amxaarada sidoo kale waxa ay bilowday wararkii Soomaaliya dhankooda ee Ethiopia xiriirka la lahaayeen ku jiray waxa ay bilowday in ay amaanaan madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka arintaasi maxay salka ku haysaa iyo amaantaasi
axmed aad baad u mahadsan tahay maanta muuqaal ay soo bandhigeen qowmiyadda amxaarada oo ku mudaharaadaysay safaaradaha dalka Ethiopia uu ku leeyahay Mareykanka, Jarmalka iyo sidoo kale Canada ayay amxaaradii mudaharaadaysay gabadh ka mid ah iyo sidoo kale gabadh kale iyo wiil waxay ammaan kala duldhaceen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marka ay ammaanahayaan aad moodaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay shakhsi Ethiopian waxay garab dhigeen inuu la mid ahaa Menelik iyo Rastafari iyo waxa weeye sheegeen Menelik 1 iyo Menelik 2 iyo Rastafari iyo Haile Selassie inuu la mid yahay ayay u garab dhigeen madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo bulshada Soomaaliyeedna la fajac iyo la yaab ku noqotay dhinaca kalena arrin su'aal mudan in la iska weydiiyo sababta keenayso in dawladda Ethiopia dhinac ay ka aflagaadeynayso dhinaca kalena uga hanjabayso ayna ku amrayso inuu Addis Ababa xiriir ula sameeyo dawladda federaalka Ethiopia dhinaca kalena qowmiyadda xaq jirka ah ee jinsiga Soomaaliga aad ka u neceb in ay maanta ammaan kala duldhacdo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintaasi Axmedow anigu ilaa hadda ma fahmin laakiin muuqaalada amxaaradu ay faafisay ayaa ka mid ahaa oo ay aad u ammaanayeen waxyaalo ammaanay wax ka mid ah madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan ayaana u muuqata inay daba socoto heshiiskii hore ay wada galeen Soomaaliya Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed dhinaca kalena lagu eedeynayay in dhaqaale aad u fara badan uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku wareejiyay dalka Ethiopia sidoo kalena aad ogeyd ururka gobonimo doonka ONLF madaxdiisa ugu sarreeyay oo kamid ah qalbi dhagax in uu ka gatay dawladda Ethiopia dhaqaale badan uu ka siistay dhinaca kalena siyaasadda Soomaaliya laga jaangoynayay magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia arrimahaas marka laga yimaado ammaantan qowmiyadda amxaarada xilligan ay jeedinayso waxay tusaale u tahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuusan ahayn shakhsi ka shaqeynaya danta Soomaalida dhinaca kalena u janjeeray dhinaca shisheeyaha iyo amxaarada xaq jirka ah xilli maanta Ethiopia ay burburaysan la amaanana waxay tusaale u tahay in qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhaawac ku ahaa faahiyo marka dib loogu soo noqdo dawladda Ethiopia iyo dagaaladii ugu dambeeyay waqooyi ka socda Getachew Reda wuxuu sheegay in dawladda Eritrea ay duqeymo lixaad leh ay ku qaaday goobo ka mid ah deegaanadaasi waliba dad shacabihiyo ay laayeen ciidamadooda arrintaasi bal noo yartaa taabo Axmed aad baad u mahadsan tahay Getachew Reda maalmahan oo dhan wuu aamusnaa inta badanna wax war ah lagama haynin laakiin warkan maanta ka soo baxay waxa uu ku sheegay in deegaanka Adigret iyo magaaladaasi agagaarkeeda ciidamada militariga Ethiopia ay ka geysteen duqeymo aad u xooggan goobaha hore ayaan u soo sheegno waxa ka mid ah Rama, Taserona, Salambasa iyo Dolalo waxa uu sheegay in goobahaasi ciidamada Eritrea oo garabsanay kuwa militariga Ethiopia in ay ka geysteen duqeymo xooggan ay ku laayeen kumanaan shacabka Tigreega ah iyo sidoo kale ciidankoodii dagaal kula jiray dawladda federaalka Ethiopia arrintan waxa uu ku sheegay in ay tahay arrin keenayso fashil siyaasadeed dhinaca kalena markii ay ku guuldareyso dawladda Ethiopia in xilligan ay dagaal ku qaado in waxa weeye ay duqeymo noocaas fuliso isku soo duuduuba eedeymahan TPLF ma ahayn kuwa markii koobaad ama labaad soo noqonayay waa kuwa mar walba taagnaa oo ka imaanayay dhinaca TPLF sidoo kalena dawladda Ethiopia ay u soo jeedinayeen waxa weeye eeda aad u xooggan dhinaca kale arrintaasi waxaa lala xidhiidhinayaa in ay doonayaan in arrintaasi ay ka sheegeen garab istaag kaga helaan wadamada caalamka iyo sidoo kale in dawladaha Mareykanka iyo Yurub ay eedeeyaan xukuumadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed faahiyo su'aasha ugu dambeyseen rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye shalay waxay dawladda Ethiopia soo saartay inkastoo qoraalkii dib looga bixiyay in jabhadda ama hadda xisbiga nimanka ah ONLF la yiraahdo inay ka mid yihiin oo xiriir fiican ay leeyihiin Al-Shabaab, TPLF iyo jabhadda Oromada ee argagixisada ku qoran inkastoo ognahay in ay haddana kala qaybsanaan ay jirto ururkaasi dhexdiisa oo laba garab ay ku leeyihiin maxaan ku dhahay magaalada Jigjiga arrintan maxay u muuqataa ma wax wada saameynaya mise dad gaar ah loo dan leeyahay arrintaasi balka hadal Axmed aad baad u mahadsan tahay anigu oran mahayo laba garab iyo laba misig iyo laba gees midna laakiin arrinta ururka ONLF dawladda Ethiopia warkana mayna saarin arrinta inaan saxiitaan ku sameeyaan rabaa dawladda Ethiopia laba war ba ka soo baxay shalay maalintii shalay ahayd labada war waxay salka ku hayeen kow in wasaaradda gaashaandhigga Ethiopia markii koobaad waxa warka soo qoray wasaaradda warfaafinta waxayna tiri waxa xiriir leh sida report Ethiopia hesho waxa xiriir leh ururka argagixisada Al-Shabaab Oraakshene TPLF iyo sidoo kale ururka ONLF warkaasi iyadoo uu ku jira baraha bulshada si weyn bulshada Soomaaliyeed ay isu dhexmarin hayaan oo waxa weeye ay keentay waxa weeye kacdoon shacab ayay haddana wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Ethiopia war kala soo saartay Axmedow waxay sheegtay in ciidamada militariga Ethiopia ku sugan
bariga Hararge ama waxa la dhaho Misraaq Hararge oo macnaheedu yahay dowlad deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Oromiya inay dagaal kula jiraan jamhadaha TPLF jamhadaha sidoo ay jamhadaha ONLF ama waxay ugu yeedheen ogaadeen fighters iyo Al-Shabaab waxa kale ay sheegeen in dagaaladii Al-Shabaab ay ku soo qaad dowlad deegaanka Soomaalida lagu laayay saraakiil sarsare oo ka tirsan waxa weeye ururka ONLF iyo sidoo kale Onaag Sheene iyo TPLF taasoo macnaheedu tahay in eedeymaha loo jeediyo ururka ONLF xilligan soo baxay ay tahay eedeymihii dowladda Itoobiya hore ay ugu jeedinaysay wixii ka horeeyay sanadii 2018 xilligaas ONLF ay heshiis la gashay dowladda Itoobiya intaasi marka laga yimaado Axmed oo wararka hordhacay hadda ka helayna magaalada Jigjiga caasimadda dowladda Soomaalida waxaana loo xaqiijiyay in dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale dowladda deegaanka Soomaalida ay ka wada socdaan in hadda wixii ka dambeeyay la ugaarsado ururka ONLF oo gudoomiyaha ka yahay Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Mahdi Maadey dhinaca kalena saraakiisha ururkaasi madaxda golaha dhexe gudida fulinta xubnaha iyo kaadirka ururkaasi in xabsiyada loo taxaabo taasoo macnaheedu tahay in mar kale shacabka dowlad deegaanka Soomaalida la gelin doono barakac iyo sidoo kale in shacabkaasi waxa weeye isha mar kale mugdi iyo colaad aan soo kabasho lahayn ay horseed u noqon karto waxa la sheegay arintaasi in Mustafa Cagjar oo hadda ku jira abaabul xooggan oo hay'adaha ammaanka iyo sidoo kale booliska iyo waxa weeye baadhista waaxda baadhista booliska inay diyaarinayaan dacwado iyo kiisas la xiriira ururka ONLF madaxdiisa iyo xubnaha xidhiidhka la leh ee TPLF iyo sidoo kale ururada Al-Shabaab waxa la sheegayaa Itoobiya inay leedahay cadeymo ay ka mid yihiin codad iyo sidoo kale muuqaalo iyo sidoo kale qoraallo ayaan haynaa waxaan ku falgalaynaa inaan dagaal la gal ururka ONLF iyo madaxdiisa Axmedow waxa la sheegayaa arintaasi in ay waxa weeye ilaa iyo hadda waxyaabaha laakiin la yaab kale Axmedow oo aniga laftigeyga fajacaygu abuuray waxa kamid ah xilli arintaasi ay soo baxayso in ururka ONLF laba qoraal oo ka soo kala baxay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo ay ku qoreen baraha bulshada iyagu ay ku leeyihiin iyo hal qoraal oo uu kaga falceliyay meeshii qoraalkaasi lagu soo qoray ee faallada ahayd mooyaane in ururka ONLF ilaa iyo hadda statement rasmi ah ama waraaq rasmi ah ama dhambaal rasmi ah ama codsi rasmi ah ama baaq rasmi ah oo ku aadan dowladda Itoobiya arrintan ay ku shabadaysay waxa weeye TPLF-nimada iyo Al-Shabaab-nimada iyo Onaagnimada in aysan war ka soo saarin oo ay ka gaabsadeen taasoo laftigeeda mugdi gelin karto shacabka Soomaaliyeedna ay si weyn isu weydiinayaan sababta keentay in ururka ONLF uu xilligan ka aamuso arrimahaas oo dhan marka la fiiriyana qaabka ay uga aamuseen iyo warka xilligu soo baxay waxay tusaale u tahay in warkan Itoobiya ay soo saarayso inay cabsi weyn ku abuurtay madaxda ururka ONLF dhinaca kalena khalkhal siyaasadeed ay ku abuurtay warkan wuxuu soo baxay mid kale Axmed wada inta faahfaahin kugu daro xilli maalmihii u dambeeyay ay soo baxayeen inuu kulan dhex maray gudoomiyaha ururka ONLF iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar dhinaca kalena la rabay waan khilaafiye yar ururka dhex jira laftooda la isku keenayo iyo sidoo kale waxyaalaha u dhaxeeya ururka ONLF iyo dowlad deegaanka Soomaalida la isku keenayo laakiin waxaad moodaa madaxda ururka ONLF ilaa iyo hadda warkan in ay si weyn oga gaabsadeen sidii looga filayay in oga falceliyaana inaysan oga falcelinin dhinaca kala baaqay ay ka sugayeen shacabka dowlad deegaanka Soomaalida inaysan ilaa iyo hadda ka soo saarin taas oo dhabtii la fajab iyo waxa weeye ay sheeg dhibaato ku ah shacabka dowlad deegaanka Soomaalida in si sakhiran maanta loo yiraahdo waa ONLF waxa weeye waa TPLF iyo Al-Shabaab iyo Onaag Sheene madaxdiina ay ka aamusaan oo sidaas la cibsi qeyrka uga aamusaan laftigeedu waa wax isweydiin leh isku soo duuduuba eedamaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale dowladda federaalka iyo wararkan helayna in xabsiga loo wada taxaabi doono cid kasta ururka ONLF ka tirsan waxay walaac ku abuuri doontaa shacabka dowlad deegaanka Soomaalida oo iyagu boqolkii sano aynu soo dhaafin la dala dhacay dhibaatooyin iyo colaad aan joogsi lahayn ihaanooyin ay kamid ahayn xabsi iyo in dadka gaajo lagu laayo iyo sidoo kale dadka in cirdigooda sharaftooda iyo karaamadooda in lagu xadgudbo isku soo duuduuba xaalka dowlad deegaanka Soomaalida iyo wuxuu ku dambeeyo saaxiibadan waxaan ugu soo gudbin doonaa barnaamijka ku xigo ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinteennii maanta waan ku falanqaynaynay guud ahaanba dagaalada ka socda Itoobiya iyo geeska Afrika intaan dib dambe ugu kulmi doono daawadayaal mid lamida waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo